gudoomiyaha wicid Faysal Cali Waraabe oo kamid ahaa wafdiga ayaan mar sii horeysa weydiiyay maadaama aanay xisbiga wadani idin la socon ma idinka gees ka daray raxmaan laba jeer buu yimi halkan laba jeer oo aanu arrimiye wadni wada hadalada ayaa halku anaga wada hadalada nala sii wadi lahaa ayuu xalkii wuxuu ka doonay Kenya waa gartay marka hadii la kala socdo adinkuna marti maadaan isagana uu mar yimaado soo dalkii kala ma socdo marka ii kaadi leen fiirsmaayeen waxaan ku yiri laba jeer buu yimi marka isagu wax magac versionkiisii buu dhiibay aragtidiisii anaguna aragtidiina dhiibina inaanu xusbi kasta wax xaq u leeyahay inuu amba doorasho ka qayb ama ku qayb galin cidna ku qasmayso doorasho waa waddanka sharci baa shay way dhacaysaa hadduu xisbi qaado ikhtiyaarkiisa weeye wax problem oo ka dhacayana ma jira dalka hadduu xisbi ka haro dadkii doorashada doonayay ay way doonayaan 10 sano ay kuyuga ku jireen marka xaq bay u leeyahay inay xuquuqdooda helaan marka xisbigaas uu isugu doortay inaanu MB ku yeelanin chamberka golaha waa sigi laakiin loo xayirnaada hal xus waa gartay laakiin halkaaga waxa ku jira isagana markiisuu yimid xisbiga inagana markayna imaanayna shacabka Soomaaliland maxay tusaysaa in aad kali u timaadaan dalka Kenya ma waxay tusaysaa badda in arrinteedii aanu dhamaysan karin wax hore noo ahaan jirna ma wax nagu furay Muuse aamin nagu furay in Cabdiraxmaan maxaa keeska baro mushkiladeeda Hargeysay taalaa xarunta Soomaaliland bay taalaa waa iska mid Nairobi markaas uu imaan Nairobi oo disinformation uu siinaya dadka naga caawiya dhaqaalaha marka wisis buu gelinaya wisis buu gelin aan ka soo saarinay wax wisis ku gelin aan ka soo saarinay wax kale oo meesha uu ma jiro waxa leenahay balaayo ma jidho bayaan reer waa gartay dadka siyaasadda Soomaaliland indhaay waxay yiraahdaan xisbiga wadani ama axsaabta mucaaradka dawladdu way la xisaabtami lahayd hadii aanu xisbiga ucid jaabka ugu jirin arinta maxay uga jawaabaysaa anu nin jeebka galay meehay taas waa aflagaad waa la yaqaan aniga anu nin jeeb galay anu danta qaran danta qaran kan eega nobody can cash me wiliga ma cash garaysan laakiin waxaan la colahay qofka qaranka doominaya waxa weeye systemka adduunyada waxa weeye in dawladda waxa qalad ka tahay policy oo aad ku challenge garanaysa policy and agenda laakiin kuma challenge garanaysa shakhsiyada iyo hebeliyaan hore u socon hada aad kursiga weydayaan dalku socon taasna ma aha hada xisbiga wadani waa xisbi weyn laga maarmi karo maxaa xal halkee loo socdaa xisbi weyn ma aha xisbi yar xisbi mar wuxuu jiraa less than 4-5 years buu jiraa Cabdiraxmaan taageerayaashiisu waa badan yihiin oo xisbiga labaad buu ahaa doorashada ugu dambeysay waxba de doorasho kii labaad soo galay hal doorasho kan ma kula tahay inuu saa ku sii jiri doono kula waa markii horeysay oo la taskareeyay marka kuma qiyaas karno marbu 40% jalay laguma qiyaas maxaa xal hadaba ku celiyay sidii hor loogu soconaya xisbiga waxa imaka inta ka dhacday imaka behaviorkiisa halku iska tagay doorashooyinkan iyo Soomaaliland sida uga soo horjeedo person uga soo horjeedo bal birita doorashada hagal waxa helo marka bari buu 40 helay inagu barash kareysan ma dadka reer Soomaaliland wuxuu u baahan yahay doorasho wuxuu u baahan yahay hor sacb u baahan yahay wuxuu u baahan yahay inuu forward ka dhaqaaqo doorashadiyo oo hore u socda loo baahan yahay wuxuu taagan yahay soo ilaa maalintii doorashadii muranki doorasho waa dhamaaday waa la endorse gareeyay waa inaan dawladda ku ilaalinaa policy-ga aan ku ilaalina maaha inaan hebano doorashadii dhacday waa inaan Faysal Cali Waraabe mar saddexaad aan ku weydiiyo maxaa xal ah xisbiga wadani halku waxa weeye doorasho waxay soconaysaa dawladdu way soconaysaa loo xidhnaan ma hal shakhsi waa shakhsi shacbigiisa oo taageeriyay doorashay doonayaan qaranku doorashu doonaya adduunku doorashu doonaya isaga loo xidhnaan maayo isagu ma ordiyo dadka ordiyay doorashay doonayaan aad u mahadsantahay Faysal Cali Waraabe in aad nagala soo qayb gasho ama waraysiga naga ogolaato mahadsanid